Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada channelkan oo aynu ku faahfaahin doono waa maxay pump station. Intaanan bilaabin waa maxay pump station, waxaan doonayaa inaan yara mention gareeyo amba aan sheego channelkan insha Allah wuxuu ka hadli doonaa biyaha wasakhda ah iyo biyaha cleanka sidii guriga kusoo galaan iyo sidii uga baxaan. Waa qayb ku saabsan engineerinka. qof walbo engineering ah hamoodin inuu yahay ka guriga dhisa amba ka wadooyinka sameeya amba railiska, laakiin ogow biyahan wasakhda ay guriga ka baxa iyo kuwan cleanka ee qasabadaada soo gala nin engineer soo design gareeyay. Videogeena haddayn bilaabano waa maxay pump station. Meeshan waxa weeyaan control room pump station weeyaan. Intaasoo guriba pump station ayay leeyihiin oo laga dhisay. Haddaad eegtid pump stationkan waxaan doonayaa inaan bilowga kasoo bilaabo. Gurigaaga markaad joogtid biyaha aad ku falxalatid amba biyaha wasakhda gurigaaga pipe ayay kaga baxaan. Pipekaasi wuxuu tagaa main sewer line-ka wadada hoostiisa mara. waa pipe weyn oo dowladdu leedahay oo mara wadada hoosteeda. Intaasoo mitirba waxaa jira wax la dhahaa manhole waa meel laga geli karo, waa birta ku daboolan wadada haddaad maraysid. Pipekaasi wuxuu tagayaa pump station. Meeshan waa pump stationkii. Pump stationku wuxuu leeyahay laba room oo mid la yiraahdo wet well iyo dry well. Wet well-ku waxa weeyaan biyihii wasakhda markay ku soo dhacaan sidaad arkaysid hadda biyihii markay uu buuxsamo ceelkaasi amba yani roomkaasi markuu buuxsamo waxay ku qasbayaan inay biyahaasi galaan baybabka kale ee dhinaca midigta ka baxaya oo la yiraahdo raising main. oo qolkaasina waa qol dry room la yiraahdo, waa qolka laga xukumo oo hadhow toole ma garanaysaa biyaha markay pipekaas raising mainkaasi wuxuu tagayaa meel la yiraahdo waste water treatment plant. waa meesha biyaha lagu kala shaandheeyo ee chlorine waxyaabo badan lagu shubo ka hor intaan lagu daadin lagu celin xagga riverka. insha Allah fiidyo badan ayaa soo socda oo aan biyaha cleanka ee qasabada xagga ka yimaadaan iyo halkay soo maraan aan ku faahfaahin doono insha Allah. wixii su'aalaha kaga tag commentigan insha Allah. channelkan cusubna please subscribe, comment, like and share. and waa idin salaamayaa. Assalaamu calaykum.